maanta dad baa ka shakisan oo leh kulmiya khilaaf baa jira iyagu tartamaya is haysta kulmiya maanta isbeddelka soo socda aniga timekaygii gudoomiyaha xisbigu dhammaad buu ku dhow yahay dhowaan dabcan dhowaan sanadka gudihiisa waxaa diyaar u leeyahay in gudoomiyaha xisbiga la doorto waxaanan boqolkiiba boqol aaminsanahan ku kalsoon hor idiin sheegaya bahda kulmiyaay inaanu kulmiya khilaaf ku geli doonin arrintaa ee wixiisa sii dhammaysan doono isagoo midaysan oo shirka iman doona haddii ilaha idhaahdo sidii looga bartay marka inaan taa laga walaaco xisbiyada ku soo biiray kulmiya intaa uu ku jiray halganka uu kolba doorasho walba ama ka koowaad noqonaya ama ka labaad waxaa ka mid a qaybaha xisbiyadii mar walba guusha aanay nasiibkoodu soo bixin waxaa ku soo biiray qayb weyn oo ka mid ahayd xisbigii hormood markii u horreysay iyo asad iyo qayb weyn oo ka mid a sahan iyo ugu dambayntii ururkii rays oo isla boqolkiiba 80 uu ku soo biiray xisbiga oo xasan gafaari madaxda ka ahaa xisbiga kulmiye mar walba doorashooyinka ka koowaad ama kalabaad ku galayay xisbiga kulmiye waxyaalaha ugu muhiimsan waxqabadkii xisbi ahaan waxa ka mid ahaa isagoo xisbi mucaarida inaanu marna qarannimada wax waxyeelaya aanu ka qayb qaadan inuu ka yimaado mooyaane kulmiye 7 sannadood oo mucaarid ahaa 8 sano oo mucaarid ahaa kulmiye mar walba dowladdii jirtay wuxuu ku dhaliilayay uga leex jecelo badnaa uu isu muujinaya inuu ka leex jecel badan yahay inuu qarannimada ilaaliyo wixii qarannimada ka xadgudbana uu isagu uga horreeyo wax kastoo dhaca kulmiye markuu mucaaridka ahaa shaqaaqa kasta oo dalka ka dhacda oo nabadgelyada ah hadday tahay somaliland gudaheeda iyo hadday dibadda tahay bay isagaa gurmanayay waxa tilmaan wanaagsan u ah oo kulmiye roolkii ugu adkaa ka qaatiyo gurmadkii ugu weynaa shaqaaqadii beelaha ka dhacday daroor kulmiyaa ugu horreeyey uguna weynaa wax ka xalliya kulmiye markuu mucaaridka ahaa mar walba dowladda joogta arrimaha siyaasadda dibadda dowladdaa jeegtuu mucaarid kulul ku ahaa ku garab taagnaa weligiina kama hor imanin kulmiye weligii dowladdii uu joogtay maalina kumuu challenge garayn oo kulamuu murmin xafladaha qaranka iyo maalmaha qaranka loo dabaal dego waa taariikhu lahaa isagoo mucaarid adaga waxyaalaha taariikhda la xusi doono ee siyaasiyan aad u adkay waaweynaa kulmiye isagoo mucaarida wuxuu ballan qaaday markay ururo badan ama dad badan codsadeen in 3 xisbo qure aanay weliba dalka haysan ururo la furo isagoo mucaaridu taageeray siyaasiyiintii lagu xidhayna aad buu ugu dooday xarigoodii inay xaq u leeyihiin in sida la furo ururada oo ay hogaaminayeen maxamed xaashi cilmiye gaboose iyo jamaal caydid markay xabsiga madiine ku jireen xulmiye wuxuu ugu doodayay war hadday dembi kala garanaa lagu haysto hadday ururo furintood tahayna 3 xisbi u xidhaan maayaane ha la furo markay soo baxeen uu dowladnimada qabtay xukunka uu doorashada helayna tallaabadii koowaad bay noqotay in ururada la furo oo kaga dhabeeyo maantana wuu taageerayaa ururada inay dagaal galaan maantana tiibuu furaya ururada waa la furaya waa mabdiya sharciya kulmiye 11 sano sanadkani aynu soconaa yahay uu xukunka hayay 7 sano iyo 5 sannadood oo dama 12 sanadkii 12 socdo kulmiye tallaabooyinka lagu xusun doonaa waxaa ka mid ah halka uu soo gaadhsiiyey kor u qaadidda diinta islaamka oo tiir dhexaadka ummadda soomaalida ah idaacadda qur-aanka kulmiya furay tartanka qur-aanka kulmiya hirgeliyey nationalka tartanka qur-aanka ee qaranka loo qabtana kulmiya hirgeliyey diiwaanka sakada kulmiya abuuray kulmiya waa waxyaalo lagu xusan doono ee lafdhabarta bulshada Soomaaliyeed ah iyo ururada furidooda kulmiya ismaha ciidamada darajadooda iyo qalabkooda iyo awoodda imika maanta lagu faaranayo kulmiya kow ka ahaa oo bilaabay hayla hadana wada kulmiya wuxuu ku faanay ku guuleystay in qalab waxa la yiraahdo adeega bulshada iyo isgaarsiinta hadday wada tahay hadday dekada iyo madada raayada
إنه تلامو وين عارف ما تيرته وكلمية بلابي ودم يسكودنا وضعنا كلمية سمية لغمان هرين حتى نيسا وضع شري ديارات كنتم ستيتا كنتم قف قادة أو فوكرة أيها كتكتك قرونك عيرقابو كبرعانا هدي على إلى سنة كان آخر صورة مالنا انت استاني دكسو كوريا تاريخ ذا كلميه والله يقدم بيدونا مر لبعض هبليو بهولت كلميه ميري جوجتبا هبليو قرنك سوماليلاند هبليو سوماليلاند ميري جوجتبا ومالين aan ku daawanayno waa maalin weyn waa maalin taariikh ugu dambeyntii waxaan u ducaynaynaa Axmed Silaawo oo xogaa hargabay hayay oo xalay markaan u tagnay aad iyo aad aragiisa jirkiisa oo samaa waan u ducaynaynaa taariikhdiisana waa ku dhaadanaynaa waana noo haynaynaa asaasay xisbigan intii asaastay inta kale ka noolba aad baan ugu hadlaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh